Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soo dhawaada halkan waa channelka Faaliyaha. Wararka channelka Faaliyaha waxaa ka mid ah tirkoobkii oo berri network la diyaariyay oo dib loo bilaabi doono. Yaa laga bilaabi doonaa waaye warka because jimcihii dad baa la celiyay si inkastoo aan sheegnay jimcihii dadkii ahaa meeshii lagu beesgareeyay shalayto dadkii dhagaxley waxa lagu beesgareeyay jimcihii laga tagay jimcihiisa kale cagdheer ogeedin maanta isniinta loo shaqeyn lahaa ifo isniinta loo shaqeyn lahaa inkastoo maantana haddana dib looga noqday network la'aan oo dadkii dib loo celiyay inay imaadeen tirkoobka oo la waayay network la'aan dadkii dib loo celiyay oo UN ay dhahday markaan network sameeyno soo sheegi doonaa beritoona ka soo war doona imaada marka dadweynihii way iska tageen marka dad baa shalayto loo yeeray la dhaho berri imaada isniintii tirkoob imaada isniintii maanta imaadeen markii network way iska dareeran dadkii berito oo talaada dad baa ku qoran sheey dhulka si mar hore loo soo dhajisaan sheegnayba marka dadkii maanta network oo ka tagay waxaa la dhacay jadwalka sidii hore loo sii wadayaa jadwalkii uu sii socon doonaa wax la joojin doono ma laha dadkii maanta laga waayay asbuuc dambe la soo dhajinayaa asbuuc dambe u dhacayaan ayaga maadaama jadwalku uu degan yahay oo berri talaadada ay dad degan yihiin dadkii degan ayaa imaanayo berri dambana arbacada waa fasax holiday waaye khamiisna dad baa degan jimcaha soo socdan dad baa degan kadib isniintii dambe ayaa la soo dhajin doonaa jadwalka cusub oo la soo dhajinaya ayaa lagu soo dari doonaa dadka laga tagay oo ah dadka maanta network ka tagay marka dadweynaha reer Dhaaweed soo wacay oo dhahaya maxaa la sameeyay si la dhahay network waa la hagaajiyay sidii nolol sheegay in soo xiganahay dayeen in network dad loo soo diray hagaajiyeen la sadgareeyay berito shaqada ay toos u bilaaban doonto marka berito shaqada waxay ku bilaabanaysaa jadwalka soo ahaa dadka talaadada ku qornaa imaanayo dadka talaadada ku qornaan halkan ayaan ka sheegi doonaa marka asxaabta loo baahan yahay in aan warbixinta dadka u sheegtiin dadkii maanta tirkoobkii laga waayay oo tirkoobkii imaanin oo imaaday oo network la waayay networkooda uu shaqeyn waayay fadlan waxa u sheegaysiin in dib laga soo dhajin doono asbuuc dambe haddana jadwalka si ahaa uu soo socon doono talaado ku socon doono arbacaan fasax ay tahay haddaan ku bilaabo harada ifo waxaa galaya D5 iyo D6 D5 sideed toddobaale lix shan afar saddex laba kow D6 lix toban shan toban afar toban saddex toban laba toban kow toban toban sagaal sideed toddobaale harada xaga dheera H2 iyo H3 iyo H4 ay gali doona H2 hadaan ku bilaabo afar laba iyo saddex iyo kow H3 shan toban afar toban saddex toban laba toban kow toban toban sagaal sideed toddobaale lix shan afar saddex laba kow H4 toban toddobaale toban lix toban shan toban afar toban saddex toban laba toban kow toban sagaal sideed toddobaale ku egtay H4 harada dhagaxley waxaa gali doona berito talaada D9 D10 iyo DA waa new block fadlan new block waxaan sheegayaa in DA bis imaadaan DA wali kaararka aan soo yeerin bis inay imaadaan dadka dhan oo DA iyo DBDC inay soo qaxin waxaa la rabaa DA inta la yeeri bis inay imaadaan oo loo sheegay imaada la haddaan ku bilaabo D9 waxaa imaanaya sagaal sideed toddobaale lix shan afar saddex laba kow oo D9 ah D10 lix toban shan toban afar toban saddex toban laba toban kow toban sagaal sideed toddobaale lix shan afar saddex laba kow oo D10 ah DA oo ah new block kow toban sagaal sideed toddobaale bis waay DA waa ilaa toddobaale marka DA waa new block fadlan new block DA ha imaato dadkii la soo dhajiyay bis ay imaadaan tirkoobka nin kasta oo loo yeerin oo isku imaado tirkoobka fadlan lama yeerin doono liis ayaa meesha la keeni doona liiska la yeerin doona haddii liiska ku jirin fadlan wax lagu qaban doono ilaa unta ma jirto saan hore idinku sheegay dadka waxaa la gooyay oo dhama dhibay network la'aan dhibtay marka network la'aan waa iska amri ilaahay wax qof uu hayo maaha inkastoo waxaan wax bil aadan ay sameeyeen ay tahay wax ilaahay sadgareeyay marka bil aadanka wuxuu sadgareeyay waa iska halaabi karaan waa bil aadan ilaahay qafuur raxiim anoo hagaajiyo waayo qaxooti aan nahay haddaan samar soo lago'no ma noqon karno ilmaan wadanaa marka ilaahay wax ka baradin inuu ilaahay mar dambe network unaga halaynin oo qaxootiga tirkoobka si fiican ugu socdo insha Allah asxaabta waxaan leeyahay warbixintan hala sheegareeyo dadweynaha loo sheego dadka iska imaanay fadlan iska imaanna meesha jadwal iyo haddii lagu soo dhajiyo macluumaad oo lagu baahan yahay aan ku yeertay fadlan imaaw
haddii aad qabto arrin ama iskuul inuu kugu socdo ama wax dan oo genuine ama isbitaal qof u wado ama qof loo wado oo tirkoob inaad gasho u baahan tahay xafiisaa jira xafiiska UNHCR aad tagaysaa xafiiska UNHCR ninka u joogo tirkoob u sheegaysaa warqadaha documentiyada waxaad tusaysaa si wixii sax ah aad ugu baxdo ama u hesho warbixintii saxda ah marka insha Allah asxaab badan ay soo wixii arkay telefoonka waxay u baahan yihiin warbixintan inay helaan marka waxaan u baahanahay warbixintan inaad fadlan sheer gareysiin dadweynaha la qaybsatiin haddii aad ku cusub tahay channelka Faaliyaha fadlan subscribe garee like garee share garee fadlan dadka allinka cusub u soo baxay oo meesha tirkoobka imaada la dhahay eegana way soo doonan karaan allinkiina u imaada saaki markii anshaan tirkoobka neta loo waxa laga bixinay harada diyaare ee laga bixinay eegana allinka waa la soo qaadanay fadlan nin kasto allinkiisa uu imaado darbi lagu soo dhajiyay ha uu imaado allinkiisa qaato sifa allinkiisa uu qaato fadlan allinku waa muhiim waa sharci marka hadda goostay bishii lixaad la soo dhaafay sanadkan hadda lagu jiro bishii lixaad fadlan allinkaada u maaw hadii lagu soo dhajiyay darbiga lagu dhajiyay ilma darbiyaha keera lagu dhajiyay darbigeeda magaca ka soo fiirso fadlan u maaw allinkaaga waxaan leeyahay asxaabta salaan sare wa salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh